بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان إري كوبان كورنيا إريجي مدحونها الصومالي الآن ما ننتي شلي وكتيدي جامعة الرعسان دوكسيجا أبارسو مقعد اللي هذا برواقه شلي واي تاريخ ذو هيد سديد محرم كنا أفر بقول صدق هي أفرت هجرية كنا بجناد لحية طبعاً كبش السديدات لبعض كن يكوي لبعتنك مدحوينه هذا الكيساس أما إيري كيساس وحاوسي وين الدفاعي دوكسي جابارسو يجمع ديسة إسلام مركانا وحاوير الكوق عضي ضدكي إيدي دوكسي جا قضبك للدوانة يكهضي وحاندون إياه قيبك بذا قضب ديساس أما قارك بذا قضب ديساس إن أندول استاجو وحانكب لابيا بارستا وسمية مدحوينه وحاول شاقي كدي مركي ومغلي هذا الهينتا أما واركي هذا الهينتا كجرتا دوكسيغا بارسو أيا وحاول شاقي إنه لوجيسا كنت جاي كلجي سيوسو قاعد وحال كاك صعدا وحانو شاقي إن يوسو بحدين النتيجة إن هالكاس أيتها ميل وناكسن أو لوجوها يو قدنا ومدة iyo islaamka ba natiijadaas uga soo baxday hadaba natiijada uga soo baxday waxa ama baarista lafteeda ayaa waxa aynu amaan iska weydiinaynaa madaxweynuhu marka uu dalka joogo gooba uu dugsi booqanayo tusaalahaan oo kale bal qiyaasa intuu joogi karaa muddo kooban bad ilaa saacad baa laga yaabaa inuu joogo dugsigaas مدة يرى كوبان حكوا جانكرا حكوا جانكرا بحال الشيء اعتراض بدن سيدبو كوا جانكرا مدة كوبان تاسواتاس قضب كلاباتنا وحال لقى شيء دوكسيبو ده معها وحلا تابن كرو أو صار لو عنت لو تابن كرو عمل أركي كرو بدن كود ومعها إنه هدو ماشى وقلت جوا وحي للشيء يبينه أركيه سيدي معها خمري حشيشة ددو حلينا هوب تسمع ماشى waxa lagu hayaaba waxay u badan yihiin waxaan la taaban karin waa barbaarin waa afkaar baa lagu fudinay ardayda afkaar baa lagu shubay waxa weeye sanawaad soconaysa sidee baad ku ogaan kartaa marka yaani ugu badnaan saacad lagu ogaan karaa teeda laba marka loo yimaado maxay ku sheegayaan maxay ku sheegi lahaayeen ay kaaga warrami lahaayeen wixii lagu eedanayay ku sheegayaan طبعا de waxa weeye jawaabtu waxa weeye waa maya haddii uu madaxweynuhu uu doonayo inuu xogta ogaado sida uu sheegay waxay ahayd inuu guddi madax bannaan oo lagu kalsoon yahay loo saaro oo ummaddu ay raalli ku tahay oo ay culimaduna kow ka yihiin guddida xubna ka yihiin iyaga loo soo ogaan lahaa iyaga ummadda u sheegi lahaa iyagaana ku soo noqon lahaa madaxweynaha oo u sheegi lahaa waxa halka ka jira qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yaani la dhacsanaa arrin uu sheegay inay maalgelin weyn uu sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday dabadda loo diray oo ku dhow 300 oo arday oo ka baxay dugsiga Abaarso oo lagu maalgeliyay in ka badan 30 milyan oo dollar oo uga jeedo madaxweynuhu maxaa lacag badan ayaa maxaa lagu maalgeliyay way kaba soo qaad ba lacag baa lagu maalgeliyay tira badan lacagta qoladii bixisay ma bilaa ujeedo bixisay ujeedo maxay ay kala hayeen ujeedo ma laha miya yani waxa weeye ma jacaylayna jecelihiin bay ay maxay dugsiga halkan uga sameeyeen oo ardadeena wax u bareen oo ay dabadaha u direen ma jacayl ba miyay naga heleen miyayna u naxariisteen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yani ninka intuu ka yimi cirifka adduunka يعني محوها يقولي هالكن دولكن وتشد دديس وامعي طبعا وتشد وليه وتشدد وليه هنا هالكن نكشيجنا وتشدد وحويه إن يصوص صاران ضد إيجا لمدة لفكرة كأجدو أو أي كشبتان كان صاران وحي هراء سيقول في شدان مشاريع دايدونية ضد إيجا أو موالين أو ضاعدا oo ay tababareen sanawaad badan tababareen ay doonayeen soo saaraan waxay doonayaan oo yaani waxay ugu yeedhan hal door iyo labeentii bulshada dadkii hor kacay hogaankii
horkacaya bay doonayaan inay sameeyaan oo siyaasad ahaan horkacaya waxbarasho ahaan horkacaya caafimaad ahaan qaybtii dumarka qaybtii dhalinyarada manaaxil xayaa dhinacyada nolosha oo dhan waxay doonayaan inay noo soo saaraan dadyow inala magaca inala midab inala dal laakiin maskaxdu aanay maskaxdeennii ahayn qalbiguna aanu qalbigeennii ahayn dhaatada iyo macluumaadka iyo fikirka iyo ideolojiyada ku jirta aanay teennii ahayn aynu rabnay ay tahay ninka samaystay dhaqankiisa iyo fikirkiisa iyo wuxuu doonayo ayay doonayaan inoo soo saaraan teeda labaad nin si cad u doonaya inuu soo saaro hogaamiyeyaal sidee baynu ugu ogolaanay dalkeenna inuu qaabkan oo kale uga shaqeeyo oo u soo saaro hogaamiyaha yay sameynaya aniga hogaamiyaha yay sameynaya ma nin gaala aniga hogaamiye wanaagsan ii sameynaya ma nin aan kala diinnahay ayaa hogaamiye wanaagsan ii sameynaya wuxuu ii sameynaya mid la aragtiya buu sameynaya mid muxuu ahaayay la fikra buu sameynaya mid aniga muxuu ahaayay muuqaal ahaan iyag laakiin aan yani wax aan doonayo aan doonayn buu muxuu ahaayay soo saaraya xarumaha waxbarashadu ee ay fartu ku godan tahay iyo xarumaha dhaqanka ee ay fartu ku godan tahay xarumahaasi waxay keeneen وين runta isu sheegna yani waxa weeye wax la dhaco ma wax la amaanana ma wax laga qajilo weeye wax laga xishoodo weeye in maanta kuwa la safto dadkaasi waxay keeneen bulshada ugu guracan adduunka bulshada aan sameyn xitaa waxa uu sameeyo xayawaanku waxay keeneen labka wax ka daya ama hungureeya iyo dhadiga wax ka daya ama hungureeya dadka noocaas bay inoo keeneen dadkeenii bay ku sii dhaxdaayeen oo ay uga dhigeen tusaale wanaagsan intaasaa ku filay oo ay ahayd madaxweynuhuna inuu xisaabta ku darsado intaasaa ku filay inay tahay meeshaasi meelo aan khayr lahayn meelo aan wanaag soo wadin meelo aan wax ummadda islaamka iyo muslimiinta u dana aan lagu hayn xarumahaas baas ee isugu jira waxbarashada iyo dhaqanka waxa ka digay oo ummadda uga digay xumaantooda iyo dhibta ay leeyihiin culimadii baa ka digtay gudidii wanaag farista ka digtay wax garadkii baa ka digay intuba way ka digeenoo meeshaas muxuu ahaayay dawladdana way kula dardaarmeen oo ummadda ka qabta aragtida guud ee bulshadana haddii la soo hadal qaado meelahaas intooda badan waa diidan yihiin adduunka waa laga tegayaa adduunkan waa laga tegayaa fursad baad haysataa dahabiya maanta ilaahay wuxuu kaa dhigay ama maanta ilaahay madaxweynaha wuxuu ka dhigay yani muxuu ahaay maanta qof ka talin kara oo go'aamin kara oo diidi kara gaalada waxay doonayso oo ilaahay raali gelin kara marka maanta fursad baad haysataaye war ummadan diinta islaamka ku dhaq war wixii diinta islaamka la dagaalamaya ummadan ka qabo war la garan maayo goorta uu geeridu imanayse way soo dhawaatay inugu soo wada dhawaatay khaatimo wanaagsan adduunka aynu kaga tagno waliba madaxweynuhu khaatimo wanaagsan kaga tago ummadan khayr kaga tago la garan maayo inta la sii noolaanayo rabbiga la kulan adoo ummadii islaamka kaga tagay laakiin ha kaga tagin adigoo muxuu ahaa siinaya garab muxuu ahaa xarumaha noocaasa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته